wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Baasha Maxamed Farax oo kaashanaya mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degme wakaaladda biyaha gobolkani Togdheer ayaa kormeer indha ku soo maray habsami u socodkii hanaanka shaqada wakaaladda biyaha gobolka Togdheer qaybaha kala duwan ay ka koobantahay wakaaladdu waxaana halkaasi uu warbixin kaga dhageystay mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha gobolka Togdheer iyagoona wasiirka faahfaahin dheeraad ka siiyay ahmiyadda ay ugu fadhido wakaaladda biyaha gobolka Togdheer bulshada ku dhaqan magaalada iyo waliba horumarka ballaaran ay ku talaabsatay wakaaladda biyaha gobolka Togdheer aad ugu faraxsanahay kormeerka uu ku samaynayo wakaaladda biyaha ee Burco wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha isagoo soo maray ceelal fara badan xafiisyadii wakaaladda halkan waa xaruntii ugu dambeysay oo ah sida u garanaysaana xarunta ceelabaad oo la yiraahdo xarunta mishiinada marka aynu taariikhdeeda dib ugu noqono meeshanu siday ahaan jirtay waa garanaysaan waxaanu kugu soo dhaweynaynaa wakaaladda biyaha waxaanu kugu soo dhaweynaynaa oo aanu aad raali uga nahay kormeerkaaga kadiska ah ee aad ku timi gobolka Togdheer aad iyo aad baanu kugu soo dhaweynaynaa mudane wasiir anigoo ku hadlaya afkii golaha deegaanka waxaanu markhaati cad ka nahay maamulka wasaaradda iyo wakaaladdu intii xilka hayeen inay dadweynaha iyo shacabka reer Burco ay u qabteen adeeg hufan adeegaas oo kamid ah biyo balaarintii magaalada tayeyntii shaqaalaha kor u qaadidii wax soo saarka biyaha waxaan aad iyo aad intii aan golaha joognay shaqo wanaagsan naga dhaxaysay maarayaha wakaaladda biyaha run ahaantii waa nin ku filan shaqadiisa ilaahay maanta fadligiisa subxaanahu wa ta'ala waxaanu maraynaa maanta 5 ceel ee jiray iyo 9 ceel oo kala imka shaqeeya labana way daboolantay 14 ceel oo ku yimi dadaalka xukuumadda iyo wasaaradda iyo nimanka madaxda halkan xukuumadda wasaaradda jooga ku yimi dadaalkooda ku yimi maalintii la wareegay xilka maareeyaha iyo maareeyo ku xigeenku dhowr iyo 10 bilood baan shaqaalo mushaar qaadan wakaaladda shaqeeyay dakhligoodu wuxuu galay 5 milyan iyo 6 milyan iyo 7 milyan markuu badiyay halkii maanta soo xareeyay dhowr iyo 20 milyan maalintii uu yiri 20 milyan noqoto dadaalka badan ay sameeyeen wuxuu keenay in Burco afarteeda koone aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda biyaha ee halkan maraya iyo kormeerkiisanba wakaaladda biyaha ee Togdheer intii ay jirtayba ama anigu daan soo gaaray waa xilligii ay ugu fiicnay shaqadeedu systemka ay u shaqeynayso iyo kobaceeda iyo quruxdeeda iyo sida dadweynuhu biyaha uga qablayahay magaaladan la yiraahdo Togdheer iyo wakaaladda biyuhu taariikh dheer bay isla soo mareen rag aad u fara badan ayaa iska bedelay waxa jiri jirtay waqtiyo wax kale iska daaya magaalada dhexdeeda ay biyo xamaasad ka abuurayeen horta dhibaatooyinkaas aan runtii ka baxnay marka ilaahay mahadi meel aad iyo aad loogu naaloodo oo qurux badan ay runtii maanta maraysa qof maanta qasabada soo jiitay de qof isagu aan soo gashan waa meeshiisa kaana meeshii central laga cabayay baa dusheeda oo oranaya biyuhu ima soo dhacaan runtii Togdheer ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda biyaha Somaliland Baasha Maxamed Jaamac ayaa halkaasi uga mahad celiyay mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha gobolka Togdheer kuna amaanay horumarka ballaaran ay ku talaabsadeen wakaaladda biyaha gobolka Togdheer وبرواقة آدن محمد شبكة عالمي قودوين نيوز مقالة برعو